Digniin ku socota ummada Soomaaliyeed dhammaan meel kastay joogaan waxaad arkaysaan waa kiniini oo laga sameeyo waxyaabo khaldan sida suufka oo kale iyo waxyaabo la mid ah. Runtii waa wax laga xumaado in aad lacag ka soo baxsato wax lafahaaga ama nafsadaada halis ku gelinayo oo laga yaabo in kaliya xanuun iyo waxyaabo la mid ah ay kugu dhacaan. Si kastaba ha ahaatee, laakiin waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed meel kastay joogaan, khaasatan kuwa Soomaaliya joogo, waa inay iska ilaaliyaan waxyaabaha qaarkood sida kiniiniyo badan oo hadda jiro oo saad arkaysaan oo ah waxyaabo laga sameeyay khaldan sida suuf, sida sida kan oo kale hadda aad arkaysaan oo laga sameeyay waxyaabo khaldan oo aad arkaysaan inuu isaga laftiisa laga yaabo suuf inuu yahay. Runtii waxaan dhihi lahaa Soomaalida meel kasta ay joogaan ha iska ilaaliyaan. Waxa weeyaan wax caafimaadkaaga u fiican ma ahan, waa wax nafsadaada halis ku ah runtii. Marka waxaan dhihi lahayn ummada Soomaaliyeed weliba khaasatan kuwa Soomaaliya joogo ayaa inta badan kaniinidan khaldan loo keenaa. Marka runtii intaadan kaniinka cunin waa inaad iska fiirisaa marka ugu horeysa hal xabo kaniin waa inaad tijaabisaa biyo aad ku ridaa intaadan cunin kaniinka ka hor. Runtii waxa weeyaan waa arrin laga xumaado dad badan in ay kaniinka isaga cudur ay ka qaadaan intay islahaayeen ku caafimaada. Teeda kale waxaan waa wax qofka bini'aadamka kaliyaha oo inta badan ka galo. Runtii waxaan dhihi lahayn iska ilaaliya mar labaad iyo mar saddexaad Soomaaliyeed. Saad arkaysaan waxa weeyaan kaniinkan waa kaniini laga sameeyay bac iyo waxyaabo khaldan. Share garee walaal si walaalkaaga u arko. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Digniin ku socota ummada Soomaaliyeed.